بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan halkaan u soo istaagay maanta taariikhdu ku beegan tahay 14 Agoosto sanada 2024 in idin la wadaago warbixin magacaabid xubnaha golaha wasiirada ee dowladda Koonfur Galbeed xeer madaxweyne nambarkiisu yahay 71 kuna saabsan magacaabid xubnaha golaha wasiirada ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweyne Lafdagaren oo ah madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay dastuurka dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya qodobkiisa 50aad farqadiisii 2aad 3aad iyo 5aad markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha ahmiyadda u leedahay golaha wasiirada ee dowladda Koonfur Galbeed qodobkiisa 58aad farqadiisii 1aad xarafkiisa A markuu tixgeliyay aqoontii way aragnimada mudanayaasha jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan oo ah magacaabid laga bilaabo maanta taariikhdu ay ku beegan tahay 14 Agoosto sanada 2024 wuxuu madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdilcasiis Xasan Maxamed Lafdagaren uu isku shaandhan iyo magacaabid ku sameeyay golaha wasiirada ee dowladda Koonfur Galbeed xubno kamid ah Maxamed Yuusuf Maxamed ayaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga iyo gudaha ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya 2 Qaasim Maxamed Abuukar ayaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya 3 Colaad Maxamed Cali ayaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda bey'ada iyo isbeddelka cimilada ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkan ayaa dhaqangal noqon doona marka uu saxiixo madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdilcasiis Xasan Maxamed Lafdagaren sida halkan ku xusan madaxweynuhu uu saxiixay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh